waxaan si step by step kugu sheegayaa waxyaabihii aad sameyn lahayd si aad Ingiriishka u barato. Wuxuu rabaa inuu si dhaqso leh u barto Ingiriishka, laakiin muuqaalkan ayaad ku ogaan doontaa sida ugu fudud ee Ingiriishka loo barto. Samee sida aan kuu sheegi doono sida muuqaalkii la dhamaadka. Marka koowaad waa inaad ogaataa inaadan u baahnayn inaad wax badan oo luqadda ah aad barato. Ma ogtahay in dadku dhashay luqadda ay isticmaalaan ama ku hadlaan wax aad uga yar inta ay ka garanayaan Ingiriishka. sidaas si lamid ah af Soomaaliga inta aan isticmaalno ayaa aad uga yar inta aan ka fahmayno af Soomaaliga. Marka waa inaad kaliya barataa inta aad u baahan tahay inaad isticmaasho. Waxaan ku tusayaa marka casharada aad u baahan tahay si aad luqadda Ingiriishka si fiican aad ugu hadasho. Marka koowaad haddii aan ahay qof aysan waxba u bilowneyn, waxaan sameyn lahaa inaan barto ABC-da iyo sidoo kale hingaada Ingiriishka oo iga dhisaysa akhriska iyo qoraalka. waxaan ku baran lahaa 2 bil. Markaan waxaan soo bartay akhriska iyo qoraalka. waxaan markaa kadib bilaaban lahaa akhrinta listigan 1500 oo eray oo isku turjuman si aan uga gaaro heerka dhexdhexaadka. waxaan dib u muraajaceyn lahaa Khamiis iyo Jimco kaste. waa kaliya akhris ma aha xifdis. ka walwalin inaad ilowdo, waa inaad ogaataa in luqad aysan ahayn wax la xifdiyo. haddii aad isku daydana ay kugu adkaan doonto oo aad ku caajisi doonto, bedelkaas waxaad samaysaa isticmaal wixii aad barato. sirtu waa inaad ku celcelisaa akhrinta erayadaas isku turjuman Khamiis iyo Jimco kaste ama marka aad firaaqada leedahay. waxayna igu qaadan lahayd 2 bil oo kaliya. markii aan fahmo erayadaas qaar badan oo ka mid ahna aan garanayo, waxaan noqonayaa qof wax ka fahmaya luqadda. waxaan marka xigta xooga saari lahaa barashada common phraseska oo ah hadallada loogu isticmaalka badan yahay sida how are you, come here, turn of the lie iyo wixii la mid ah. akhrinta listigan gaaraya 1000 phrases. markii aan barto phraseskan waxaan noqonayaa qof xoogaa ku hadli karo ama wax ku muujin karo luqadda, laakiin ma garanayo qaabka loo dhiso jumlad saxan. marka waxaan u tagi lahaa macallin si aan uga barto kaliya basiga grammarka. markii aan soo barto sida jumlado loo dhiso oo aan wax ka fahansanahay grammarka, waxay igu qaadan lahayd qiyaastii 2 bil. muddadaas ayaana igu filan. marka xigta 1 bil ayaan xooga saari lahaa akhrinta buugaagta sheekooyinka Ingiriishka ama si fudud YouTube-ka ayaan ka dhageysan lahaa. muhiim maaha inaan wada fahmo waxa aan dhageysanayo, laakiin waxaan hubaa inaan wax aan ka fahmi lahaa maadaama aan soo bartay 1500 oo eray. marka xigta waxaan kordhin lahaa erayada aan ka garanayo luqadda si aan uga gaaro heer wax badan aan ka fahmi karo Ingiriishka. marka waxaan akhrin lahaa erayadan gaaraya 3000 ee kamanka ah. waxaan isku dayi lahaa inaan jumlado ka sameeyo. wixii aan fahmi waayana waxaan la kaashan lahaa ChatGPT si ay jumlado saxan iigu samayso. kadibna waan akhrisan lahaa anoon marna isku dayeenin inaan xifdiyo. bedelkaas waan isticmaalayaa wixii aan barto. markii aan intaas sameeyo ee aan barto erayadaas iyo dheeraad, waxaan ahay qof luqadda fahmaya oo jumlad la fahmi karo dhisi karo. markii intaas aan ka soo gudbo, waxaa ii muhiim ah inaan Ingiriishka ku hadli karo. marka si aan Ingiriishka ugu hadlo sida dadku u dhashay oo kale, waa inaan bartaa lahjadooda iyo hadallada afsuuqeedyada ay ku hadlaan. waxaan 1 bil ku baran lahaa casharadan American accent si qaab dhawaqaygu iiga saxmo. bil kale ayaan xooga saari lahaa akhrinta listigan 500 ee phrasal verbska ee kamanka ah iyo 200 oo idioms kaman ah. waxaan ugu dambeyn 3 bilood u qorsheyn lahaa inaan iska dhiso ku hadalka Ingiriishka. waxaan maalin kasta 1 saac kula hadli lahaa Ingiriishka ChatGPT ama aniga ayaa iskula hadli lahaa anoo marba mowduuc gaar ah ka hadlaya, anoon ka cabsanaynin inaan sameeyo wax qalada. 1 sano kadibna luqadda Ingiriishka aad ayaan ugu ficnaan lahaa. waa qorshe fudud, waxaan idin la wadaagi doonaa qorshe aad kaga sii fudud. Gaggle waa luqluqasho. Wonder waa iska warwareegid. Drag ereyga drag waa jiidid. He is dragging a bag. wuxuu jiidayaa bag ayuu jiidayaa ama boorso. Hang surasho, inaad wax meel surato. Please hang your coat in the hook. fadlan coatkayga ama jaakadayda waxaa surtaa in the hook. hooga sur, yani meesha wax la dharka xawaan noocaas la surto. ereyga afraad dig, qodid. He is digging a bit in the garden. wuxuu wax yar ka qoday beerta ayuu yani wax ka qodayaa. garden waxa waa beerta yar ee guriga ku taalo. knit waxaa la dhahaa tulid. knit waa tulid. Grandma is knitting a scarf for me. grandma waxay ii tulaysaa scarf, ay ii tulaysaa marada garabaha la saarto ay ii tulaysaa for me aniga. lick waa leefid. The boy wiilka is licking, wuxuu leefayaa the ice cream, jilaatada ayuu leefayaa. nod waa madax ruxid. I nodded my head, madaxigaan ruxay to say hello si aan u dhaho hello. markaan dhahay hello,
blow waa afuufid. Hold the tissue waxaad qabsataa tissuega ama tissuega qabso warqadda yani wax lagu tirtirto and blow your nose kadibna afuuf. Climb waa fuulid. She is climbing the stairs slowly. Si tartiib tartiiba ayay u fuulaysaa jaraanjarta. Stairs waa jaraanjar, climbingna waa fuulid. Ereyga tobnaad hug waa habsiin. When I see my grandma I hug her tight. Markii aan arkay ayeydeyda I hug her waxaan hab ayaan sii tight si adag yacni ayaan hab siiyey. Hit waxaa waaye ku dhufasho. Don't hit your brother walaalkaaga waxaa ku dhufanin. Hold ereyga 12 waa hold qabasho. Hold my hand gacantii qabo when we cross the street markii aan ka gudbayno wadada. Wander waa iska warwareegid. Step waa ku istaagid ama tallaabo sidoo kale way noqotaa markaa tallaabo qaadis waa step. Trap waa tuurid wax markii aad tuurto kale waa trap. sidoo kale throw waa isku macno labadan erey laakiin waxbay ku kala duwan yihiin. Cover daboolid. Fert ereyga fert waa dhuuso. Bold bidaar. Bold waa bidaar. Ereyga bend waa foorar. He bent down wuu foorarsaday to pick up si uu usoo qaado the toy alaabalabeyda ama bombalaha. Ereyga labaad shatter ujajabidda qaybo yaryar. Shatter waa markii wax u jajabaan qaybo yaryar. tusaale markii muraayad jabto kale waxyaaba noocaasa. The glasskii ka samaysnaa muraayadda fell uu dhacay and shattered on the floor wuxuuna ku jajabay flooga ama shamiitada ayuu ku dhacay. Crack dilaac yar. Crack waxaa la dhahaa dilaac yar marka taleefankaa jabo kale dilaac yar uu leeyahay waa crack. There is small cracks in the window. Windowga daaqadda waxay leedahay dilaac yar ayay leedahay. Squash bajijiqin markii waxaad ay yacni wada majuujiso oo aad bajijiqiso waa squash. He squashed wuxuu ku istaago majijiqiyey the tomatoga yaanyada ayuu bajijiqiyey and his shoe kabtiisa ayuu hoosteeda ayuu ku bajijiqiyey. Squeezing waxaa waaye majuujin in wax la majuujiyo ayaa waxaa la squeezing. He squeezed wuxuu majuujiyey the orange-ga liinta ayuu majuujiyey for juice si uu juice oga sameeyo. Crumble waa isku duduubid markii warqadoo kale isku duduubayso waa crumble. He crumbled the note and threw it away. He crumbled wuu isku duduubay the note-ka xusuus qorkii warqadii and threw it away wuuna iska tuuray. Snap waa ka sharqaminta faraha markii aad saan dhahayso ka sharqaminayso.